إني ويلك سوماليغا يويلك بورانكا يقولوينكا كلا يا مسلمين تا يويلك كوكويدا يويلك كلنجينكا يويلك جلودا مد نقون دونان oo dadka la sameeyo wana dastuuri madaxweynaha wuxuu fuliyay qodob dastuuri qodobka 12aad ee dastuurka wadanka dhurwa la tagis bartay karidis waa ku caab marka nimanka waxa weey wax horay barteen iyo waarka hadda Soomaalida waxa weey waraaqdi madaxweynaha uu ku saxay sharciyan ونقطة Soomaalida intuu wadankan xorka u ahaa iyo qolooyinka faraha badan oo degaan magaalooyinka xuduudada aan la leenahay ama Uganda ama Ethiopia ama Soomaaliya ama Tanzania ama South Sudan dadka meelaha degaan iyo khaasatan Soomaalida iyo muslimiinta markay rabaan inay helaan waraqaha sharciga ID cardka iyo baasaboorka iyo waraqda dhalashada nidaam dastuuri ahayn ayaa la marin jiray oo la jira vetting maadaama madaxweynaha markuu cod u raadsanayay uu ballan qaaday inuu arrinkaasayto dadka wadankan uu simi doono haddana xasaasi badan ay keentay iyo shaka badan ay keentay wayna fiican tahay ayuu meesha wajeer ku saxiixay inay maalintii uu joogay arbacadii wajeer wiigi hore inay wiilka Soomaaliga iyo wiilka booranka iyo qolooyinka kale iyo muslimiinta iyo wiilka kukuyada iyo wiilka kalanjiinka iyo wiilka jalwada mid noqon doonaan oo dadka la sameeyo wana dastuuri madaxweynaha wuxuu fuliyay qodob dastuuri qodobka 12aad ee dastuurka wadanka xasaas waxa ka abuurtay niman waxa jiraan 5 madaxweynaha wadankan jiraan asaa 5 ku ah 3 cido way ka imaadeen wacdo wadankan ceelka biyaha ka cabeys kaligeed hadda waxay arkeen ceelkii wala lacaba marka Soomaalida waxa ku maamaaday dhurwa la tagis bartay karidis waa ku caab marka nimanka waxa weey wax horay barteen iyo waarka hadda Soomaalida waad ogtahay tirada koobka anagana wayna maquuriyeen maxkamadan aanay waan kala tuurnay marka tirada Soomaalida ay soo badanayso xoolo dhaqatada soo badanayso waxay dadka ay ku lahaayeen annaka wadankan u badan annaka wadankan wadan madaxweyne Ruto wadanku isku keenaya qabiil asoo afiirinayn asoo diinta fiirinayn asoo degmada fiirinayn asoo qoyska kiimata fiirinayn waa dawladda isku keenay kuwa mucaaradkii ku duu keenay wadankan wuxuu yiri waa inuu mid noqdo marka nimankaas midnimada wadanka ayadan ugu jirto waxaadana ugu jirta inay ayaka kili ay dhinacooda ay u baaso dawladda marka hadda taas ay xasaas keentay taana dhimo lah waa jambida waxa wadanka lagu sheegay waa jambi ad garbow ama salliga ama jambiga ninka sa qayb ka fadhiya marka waa Kenya waa jambidaas aadan bar qayb meel ka fadhiya ninka meel ka fadhiya ninka sa meeshu soo reebana marka jambida ama war wala fadhini ama jambida nikri uu ka kaca